Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaam dhamaan walaalayaal Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan mar kale walaashin xabsi shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalaha dhammaan gadaal nooga soo biiray iyo kuwa had kadib nagu soo biiri doono. Waxaan leeyahay aad mahadsantihiin, kuwa hore noola jooga aad mahadsantihiin. Fadlan waxaan idinka codsanayaa video haddaad soo geliyo oo aad fiirsateen please like taa ka ilaawina. Like-taas waxay caawinaysaa dad badan inuu video gaaro ay ka faa'iidaystaan. Muhiimadda waxaa waaye casharadan aan soo gudbinayo inay hooyooyinka faa'iidaystaan maadaama channelkan hooyooyinka loogu talagalay iyo caruurtooda. Please maxaa la marka like taa ka ilaawina u sii share gareeya dadka mudan ama dadka u baahan casharadan aan soo dhigayo. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo C-section ama qaliinka hooyada lagu sameeyo marka xaamilada ay tahay si cunugeeda looga dhaliyo. Marka waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha keeno qaliinka hooyada cunuga ay ku dhasho iyo maxaa la markii lacala ay dhacdo in la qalo sidee ula tacaali karto nafsadeeda iyo qaabka qaliinka loo sameynayo iyo recovery-ga hooyada yacni raysashadeeda process-keeda. Maxaa la soo dhawaada marka maxaa la subscribe-na ha iga ilaawin haddaa hore iigu saarin hooyo ama walaal qofka dhageysanayo oo video-gan soo gaari doono. Marka C-section ama cesarean delivery waxaa la isticmaalaa in cunuga hooyada looga dhaliyo xaalado jiro awgooda. Xaaladahaas maxaa ka mid ah sababta loo sameeyo C-section maxaa ka mid ah midka koowaad haddii maxaa la hooyada foosha ama ay ku dheeraato xilliga yacni foosha ay zaaid ugu dheeraato oo wax horumar ayna la gaaraynin oo hooyadii ama furnaashihii looga baahnaayo hooyada waxaa laga rabaa ilaa 9 centimeter inay furnaato. 9 ay furmayninba oo hooyada xanuun la iska haayo 24 saac ka soo wareegtay wax isbedel ma lahan. Cunugina yacni dhibaato soo gaari karto hooyada dhibaato soo gaaraysa xanuunkaas aad u fogaaday. Marka haddii la arko hooyada wax isbedel ah inaysan sameynaynin waxaa lagula taliyaa in yacni qaliin lagu sameeyo si cunuga iyo hooyada loo kala badbaadiyo. Waxaa kaloo jiro haddii cunuga dhibaato laga dareemo inay hayso oo sida wadna garaaciisa inuu yaraado ama cunugii waxaa jiro marka qaar wasaqda inuu cuno oo caloosha ku jirto inuu cuno oo asagana dhib uu soo gaaro. Waxaa kaloo jiro oo qaliinka keeno cunuga haddii booska loogu talagalay uusan joogin badanaa ilmaha markii la rabo inay caadi u dhashtaan xilliyada ugu dambeeya way is rogaan madaxa hoos maro marka cunuga madaxiisa hadduusan hoos jirin oo dadab uu yahay ama uu qaloocan yahay ama madaxiisa meesha loogu talagalay uusan joogin waxaa lagula taliyaa hooyooyinka in qaliin lagu sameeyo si markaas aysan u dhibtoonin hadhow dhalmada cunugaas. Haddii cunuga hooyada ay sido uu ka badan yahay 1 sida mataano inay sido ama 3 ama 4 ay sido qofka ilaa u fududeeyo wuu dhali karaa laakiin waxaa laga yaabaa ilmaha naftirkooda mataanaha ah inuu mid dadban yahay midna toosan yahay. Waxaa kaloo jiro haddii placentada ama ibida ee problem ka jiro oo placentada cunuga ay kasoo horeyso ayadana waxaa lagula taliyaa hooyada qaliin inay ku dhasho. Haddii yacni uu jiro xaalado kale oo caafimaad oo hooyada haayo sida hooyada inay dhiig kar qabto inay sokor qabto ama inay qabto xanuunaha wadnaha la xiriira iyadana waxaa lagula taliyaa hooyada inay qaliin ku dhasho. Haddii uu jiro cunug waxaa jira ilmo marka qaar madaxweynaad ku dhashto oo madaxa biyo ka galo madaxooda aad u weyn yahay hooyada caadi u dhali karin ama haddii cunuga hooyada ay dhalayso uu miisaankiisa aad u weyn yahay ay ku adagtahay hooyada oo laga cabsanayo hadhow haddii caadi looga dhaliyo inay dhibaato badan u gaarsiiso hooyada oo isku furan uu imaado waxaa lagula taliyaa hooyadaas ayadana in qaliin ay ku dhasho. Haddii hooyada mar hore qaliin ay u martay ha ahaado qaliin kaleeto cunug ka dhashay ama qaliin looga sameeyay ilmo galeenka asagana waxay keeni kartaa hooyadaas in lagula taliyo in ay qaliin ku dhasho. Marka lacala haddii ay dhacdo ilaahay uu kuu qoro in qaliin aad ku dhashid qaabka loo maro ama riskiga kugu imaan kara ama riskiga cunuga ku imaan karo ayaan rabaa inaan la wadaago. Wax ka mid ah cunuga iyo qaliinka ku dhashto waxaa laga yaabaa neefsashada problem inuu yacni ka soo gaarto maxaa la oo badanaa ilmaha qaliinka lagu dhalo haddii waqtigooda ay dhameysanin ama haddii problem hawada inaa dhalo la geliyo waa aragteen soo ma cunug caadi u dhashto badanaa oo dhalo la geliyo way yartahay laakiin ilmaha qaliinka lagu dhalay dhala ayaa la geeyaa oo waxaa yacni oxygen ku yar darteeda
haddii yacni waxaa kaloo soo gaari karo risk kaloo cunug soo gaari karo waxaa kamid ah hooyada qaliinka lagu sameynayo inuu qaliinkaas cunuga uu taabto maxaa la dhahaye haddii marka cunugan inay soo gaarto dhib xagga sakiinta hooyada lagu qalaayo inuu dhib ay soo gaarsiiso ma badno laakiin way dhici kartaa riskiga hooyada soo gaari karan waxaa kamid ah hooyada infection inuu ku dhaco oo meesha qaliinka lagu sameeyo oo infection ay qaado in hooyada dhiig bax fara badan uu ku yimaado in hooyada ay reaction ka qaado ama xasaasiyad ka qaado daawadii suuxisada lagu duuray anesthesiada ay reaction ka qaado waxaa kaloo dhici karo blood clots waxa la dhaho ama xinjirowga dhiigga dhiigga uu ku xinjir uu noqdo waxaa kaloo dhici karto surgical injury asagana in hooyada qaliinkaas lagu sameynayo uu dhibaato ka gaarsiiyo ama kaadi heysteeda ama meesha saxarada soo mareysay yacni way yar tahay ma dhacdo badanaa laakiin way dhici kartaa waxyaabaha ku imaan kara ay kamid tahay maxaa la dhahay in hooyada hadhow haddii uur badan yacni ilmo badan inay dhasho ay rabtay hadhow markaas jaaniskaas uu ku yaraado maadaama hooyadan qaliin ay ku dhaleyso ilmo aad u fara badan ma dhali karto anigu Soomaali haddaan nahay badanaa waxaan jecelnahay ciyaal badan inaan dhalno marka qofkii jecel inuu ciyaal badan dhalo way ku adkaan doontaa hadhow hadduu qaliin mar ku bilaawdo sidee marka iskugu diyaarinaysaa qaliin hooyada waxaa laga rabaa yacni in loo sheego dhakhtarka uu u sheego qaliinka waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha la xiriiro waqtiga ay qaadanayso inay reysato kulli qofka in laga dhaadhiciyo muhiim ah oo la fahamsiiyo markaas yacni qofka at least isagoo degan ayuu go'aan qaadan karaa haddii ay keento xaalad waxaa kaloo jira hooyooyin ayaga iskooda u doorto qaliin in lagu sameeyo sababta ay tahana ay ka baqayaan foosha hooyooyinkaasna badanaa ma ahan hooyooyin Soomaali yacni hooyooyinka qaliinka doorto waa hooyooyinka dibadaha oo cadaanka iyo dadkaas because ayaga ma rabaan ilmo badan inay dhalaan waxaa laga yaabaa hooyadaas inay hal cunug bis uun rabto ama labo keliya ay rabto marka ayadaaba go'aansanaysa oo dhahaysa ani maba rabiba caadi inaan u dhalo so marka qaliinka ka hor say isku diyaarin kartaa qaliinka hor waxaa lagaa rabaa inaad soo diyaarisid maxaa la dhahayay 24 saac aada qaliinkaaga waxoogaa saacado ka dhiman aadan cunto cunin inaadan yacni aadan xiirin timaha hoose 24 saac ka hor qaliinka waxaa laga yaabaa halahay inay keento maxaa la dhahaa infection inay keento isbitaalka marka imaatid dhakhaatiirta waxay kuu sameynayaan waa lagu diyaarinayaa hooyada waxaa loo gelinayaa catheter waxaa la baalka kaadida qaado because hooyada markii la suuxiyo hadhow musqul ma tagi karto caadina ma u kaadin karto samahan so marka catheterkaasaa loo gelinayaa kabacdi waxaa la geenayaa qolka qaliinka kabacdi waxaa loo diyaarinayaa in anesthesiada lagu duro anesthesiada waxaa waaye daawada suuxinta laba nooc waaye mid hooyada iyada in la wada suuxiyo ama qaarka dambe badanaa hadda qaarka dambe ayaa la sameeyaa hooyada xaalad walbana way la socon kartaa markaas oo dhakhaatiirta hadalkooda cunugeeda marka dhashto wax walba way la soconaysaa marka anesthesiadaas lagu sameeyo oo la ogaado inay diyaar tahay kabacdi hooyada qaliinka lagu sameeyaa marka koowaad caloosha la qalayaa kadib haddana waxaa la qalayaa ilmo galeenka la qalayaa kadib cunuga laga soo saarayaa cunuga marka laga soo saaro waxaa la jarayaa xuduntii laga jarayaa kabacdi hooyada waxaa laga soo saarayaa ibida waa la nadiifinayaa kabacdi haddana dib loogu celinayaa tuliinkii oo dib loo xirxirayo meeshii la furay kabacdi qaliinka markuu dhammaado hooyada waxaa laga soo saarayaa qolka oo qaliinka waxaa la geenayaa qol oo lagu ilaalinayo 24 saac ugu hor maxaa la dhahay kabacdi hooyada waxaa laga rabaa 2 ilaa 3 maalin inay isbitaal ku jirto si dhakhaatiirta ula socdaan xaaladeeda oo wax infection laga ilaaliyo xanuun baabi'iyo la siiyo qalajiyooyin lagu duro kabacdi hooyada markii ka baxdo anesthesiada badanaa waxay qaadataa saacado yar adii 4 saac 5 saac markay ka baxdo ama 6 saac maybe half a day inay qaadato haddii ay ka wada baxdo hooyada waxaa laga sugaa inay maxaa la dhahay badanaa Soomaaliya waxaa la dhahaa hooyada waa inay aariyota ama yacni qofkaas aari inay ka imaataa kadib wax ay cuni kartaa ama wax cabi kartaa so marka ugu horeeya hooyada waxaa loo ogolaanayaa biyo inay cabto marka mashquul yaraa galay hooyada markii oo anesthesiada ka baxdo ama kabaabyada ka baxdo waxaa la maraa inay socoto si calooshan ay uga fariisanin maadaama hooyada qaliin ku dhashay ama hooyo caadi u dhashay labadaba inay caloosha ka fariisato maaha wax fiican oo aad ay hadhow dhib ugu keeni kartaa
marka in wax badan ay cabto socoto si ay ugu fududaato hadhow saxarada inay si fudud uga imaato. Hooyo markay guriga tagto maxaa laga rabaa inay is ilaaliso, nasato, wax walba ay u baahan tahay loo soo dhaweeyo si hadhow dhaqdhaqaaq tiro badan iyo waxaas aysan u sameynin oo xanuunkii iyo wixii ay sii dhibsanin. In xanuun baabi'yeeda ay isticmaasho, daawada dhakhtarku soo qoray ay isticmaasho. Waxaa kaloo laga rabaa hooyada inay iska ilaaliso inay culays qaado, cunugeeda wax ka badan inaysan qaadin. Maxaa la C-section markii hooyada lagu sameeyo lacala waxaa imaan kara xaalado xanuun soo maahan. Marka hooyada guriga markay tagto kadib lacala haddii aragto meeshii nabar gaduudatay ama barartay ama dhacaan ka socdo ama qandho zaa'id ay qabato ama madax xanuun zaa'id oo qabto, waxaa muhiim ah dhakhtarkeeda inay la xiriirto. Mar walba dhakhtarka inaa la xiriirto oo aadan inkirin xaalado. Waxaa laga yaabaa xaalad adiga is leedahay way sahlan tahay inay hadhow dhib kuu keento. Marka wax yar isbeddel haddaad dareentid dhakhtarkaaga la xiriir. Waxaa kaloo jiro hooyada ku imaan karo yacni dabeecadeeda iyo inuu isbeddelo. Waxaa jiro waxa la dhahayo postpartum depression oo hooyooyinka umusha ku dhaco. Kaasna insha Allah topic gooni ah uga soo hadli doonaa. Marka lacala hooyada hadday dareento inuu yacni dabeecadeeda ay isbeddeleen, xanaaq badan isku aragto, oohin badan isku aragto, walwal isku aragto, dhakhtarka inay la xiriirtaa muhiim ah. Inay caawimaad weydiisato dadka ehelkeeda, walaalaheeda in la caawiyo oo inta karaankooda cuntadooda u kariyaan, waxooda u diyaariyaan. Cunugeedana naaskeeda ay siisato ilaa ay kareysanayso. Hooyada qaliin ku dhashan badanaa waxay ku reysataa 6 isbuuc ama 40 kaba sida anaga aan u naqaano. 40 kadib caadi waa hooyada waxay rabtay qabsan kartaa. Muhiimad waxyaabo aad u culus leh inay iska ilaaliso howlaheeda iyo nolosheedana caadi ah u sii wadan kartaa oo gurigeeda iyo tacaamulka zawjkeeda waxaas dhan way u bilaaban karaan. Marka lacala haddii xaalad ay ku imaatan dhakhtarka inay la xiriirto. Waxaan idinku soo gudbinayaa waxa waaye inaa cashar guud ah ka qaadatiin, talooyin guud ah ka qaadatiin. Laakiin hal mid aan xasuusiyo ani dhakhtar ma ihi. Haddii aad su'aal qabtiin oo caafimaadkiina ku saabsan dhakhtarkiina weydiiya. Waxaan siinayaa fikir guud si aad u ogaatiin waxyaabaha oo noloshiina soo wajihi karo ama caruurtiina soo wajihi karo. Wixii kaleeto waa su'aal ani idinkaga jawaabi karan waa idin soo jawaabaya insha Allah. Commentiga section-ka ha ilaawina inay igu soo qortiin. Aad mahadsantihiin. Jazaakumullahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.